waxaa dalkeena laga dhisayaa markii ugu horeysay xarun dayax gacmeed laga tuuro xaruntaasi waa xaruntii ugu horeysay ee dayax gacmeed laga gano ee qaaradda Afrika ku taala meelo kale oo caalamka oo loo habeeyo dayax gacmeed laga tuuro muddo dheer laga tuuray way jiraan laakiin qaaradda Afrika markii ugu horeysay ee dayax gacmeed laga tuuro waxay noqon doontaa dayax gacmeedka Soomaaliya laga tuuri doono haddii alla yiraahdo waliba sanadkan aakhirkiisa insha Allah waxaa fursad xaruntaasi waxay fursad shaqo siin doontaa kumanaan Soomaali ah oo aqoon-yahano ah sidoo kale waxay kobcin doontaa dhaqaalaha dalkeena oo waxay sababi doontaa ila cusub iyo jahad cusub inay keento oo sababta ugu weyn ay tahay in Soomaaliya ay tahay dal lagu kalsoonaan karo la maal gashan karo khatari aanay ka jirin gaar ah oo u gaara sida hadda naloo haysta sanadii la soo dhaafo dhan khataro noo gaara ayaa jira la dhihi jiray inaan ka soo kabanayno ka soo baxnay ilaa xaddigaas aan gaarnay lagu aamino balaayiin dollar iyo khubaro iyo aqoon dheeri ah oo adduunyadu aanay kasban sidaas daraadeed soo kabashadaas waxay keeni doontaa in mashaariic kale oo waaweyn ayaguna ay dalka ku soo dhiiradaan dad badan iyo dawlado badanna ay dalka inay maal gashadaan ay u yimaadaan Soomaaliya inay horumarto waxaan u baahannahay kaalmo dhaqaale iyo kaalmo aqooneed oo adduunka kaalmadaasi mid sadaqa ah oo ugu baahannahay maaha mid ganacsi ah oo in wax nala wadaaga ah khayraadka iyo wanaagga aan leenahay ee dalkeenu leeyahay in la maal gasho annaguna aan ka faa'iidno caalamkuna uu ka faa'iido halkii meesha ay khayraadka aan leenahay noo ooli lahaa annaguna aan ku dulgaajaysnaan lahayn taas ilaahay idankiis way soo gabagaboobeysaa mar dhow